quraanka kariimka wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala ku leeyahay suurat maa'ida aayada 32 hadii qof dilo qof aan waxba galabsan muslim ha ahaada ama yuusan ahaane waxay la mid tahay isagoo dilay ibn aadamka oo idil sidoo kalena hadii qof badbaadiyo qof waxay la mid tahay isagoo ibn aadamka oo idil badbaadiyay quraanka islaamka iyo aniguba waxaan ka soo horjeednaa fal walba oo argagixiso ah oo dad aan waxba galabsan lagu waxyeelay falkaas uu ka mid yahay kii magaalada Dhaka ee dalka Bangladesh 1 July 2016 ka dhacay qof allaala qofkii isku dayo inuu cudurdaar u sameeyo dilka qof aan waxba galabsan in fal islaam yahay wuxuu xaqiiqdii khilaafayaa quraanka kariimka iyo xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam kan waa Dr. Zakir Naik oo jooga magaalada barakaysan ee Makka 1 Shawaal waxaan idin rajeynayaa dhammaan ciid wanaagsan Allah naga aqbala acmaasha wanaagsan iyo ducooyinka Allahna inoo dambi dhaafo aamin